sariyu nabigu diray markaas ninka soo qabtaan markaas ninkii nabiga loo keenay ma garanaysaa ninkan ma garanayno waa Thamamah bin Uthal waa malik al-Yamama halka igu xidhay buu masjidka dhexdeeda igu xidhay saajidkii waa jeel markaas halkii baa lagu dhaxidhay markaa nabigu reerihiisii u tagay cunto uga soo qaaday hashi irmaanida nabiga noo maalay caanaheegina uga soo qaaday markaas nabigu halkii ugu keenay oo aad oo nin xidhan markuu cuntadii siiyay oo caanihiina ka bisiyay buu ku yiri ya Thamamah iska soo islaam markaas uu ma islaamayo in taqtul daadamin wa in tun'im ala shakirin wa in turidu al-mala fasal ma shi'ta buu ka yiri ya Muhammad hadad aniga idishid buu ka yiri nin dhigiisa dhulka u dhacaya ma yihiin tolba iga dambeeyo buu haddaad galadaysatina maanta xariga iga sii deysinna nin abaal celiyaan hay buu dhano waan abaal gudi haddaad maaliya diyo doonaysana sheega waxa doonto waan ku siinay laakiin xariga iga sii daa markaa nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri may kuma sii deynina buu ka yiri habeenkii buu halkii ku bariyay cashadii buu nabigu haddana u keenay hashi nabigu caanaha uu ka maalayay isaga looga maalayay ayuu nabigu kaleey salaatu wasalaam isaga ayuu u keenay caanihiisa markaasuu ku celiyay haddana uu iska islaam nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa nin gaala oo mushrika caanihiisii intuu keenay siinaya xeraadku ku casheynayana intuu soo qaalibu hordhigaya markaasuu weliba u khidmaynaya u adeegaya uu leeyahay soo islaam muxuu nabigu ninka la magan yahay inuu naar ka badbaado masab ka dooni maayo lacag ka dooni maayo shuurad ka dooni maayo waxa kaliya ninka nabigu ka doonaya waxa weeyaan inuu soo islaam markaasuu ku celiyay haddana ya Muhammad haddaad idishid dhiigaygu dhulka u dhici maayo waa laga dambeeyaa buuri haddaad galadaysatina maanta oo sii deysid oo xariga iga sii deysidna nin abaal celiyaan ahay buuri anigu ma ciyaar nin kaftabaya ma yihiin buuri abaalkaaga waan gudi haddaad adduunyo doonaysana xoolo waxa doonaysa i weydiiso madax furasho waa ku siinay xariga iga sii daa markaa buu nabigu kaleey salaatu wasalaam ku yiri may markaas de waa hagaag anigu ma islaamay buuri haddana maalintii saddexaad sidii silay buu nabigu ninkii ugu khidmeeyay xaraadkii buu u keenay caanihii buu u keenay markaas uu ya Thamamah iska soo islaam sidii uu isaguna ku jawaabay markaa buu nabigu saxaabadiisii ku yiri dilkiisu waxba inoo tari maayo xariga ka sii daayay iska socday buu yiri sii daayay markii la sii daayay magaaladii Madiina ka baxay baarihii baar kamida buu galay ceel ay lahayd buu biyo ka soo dhaansaday uu ku soo qubaystay oo uu soo maydhay masaajidka nabigeena uu ku soo noqday isagoo oo leh ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وصلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجع يا رسول الله دين تادن ديمها ugu necba laakiin maanta laga bilaabo diin taadan diimaha ugu jecelahay dalkaagan adduunyada ugu necba magaalada Madiina ayaan magaalooyinka ugu jecelahay wajigaagan wajiyada ugu necba maanta laga bilaabana dadka Ilaahay abuuray adan ugu jecelahay buu ka yiri habadle ninkaas saddexdii maalmood ee masaajidka nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu ku dhaxidnaa masaajidku waa meesha raxmadda Ilaahay ku soo degayso waa meesha malaa'iktu ay imanayso waa meesha muslimiintu Ilaahay ku xasuustaan waa meesha qofkii soo galaba loo dama dhaafo weeyaan waa meesha nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu doortay inuu ummadiisa ku tarbiyadeeyo